bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal rabadaan wanaagsan meel walbo aad joogtaan iyo si walbo muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta aynu youtube-ka ku leenahay ee runsheega saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa kamid ah axmed madoobe oo ceel waa kula shiray sirdoon ka socda dalka kenya agaasime cabdinuur oo beeniyey warar laga faafiyey oo la xiriira puntland iyo weerar madaafiic ah lagu qaaday saldhig ku yaala duleedka kismaayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada inagu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabi raalli ka noqdo badan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis la idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like na nagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad oo heshaan idinka alle saaxiibayaal si hordhac warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe ayaa ceel waaq kula shiray sirdoon ka socda dalka kenya dhowaan ayuu halkaasi gaaray si uu u tusiyo in doorasho aan macno badan ku fadhin ay halkaasi ka dhacday warar soo baxay ayaa tilmaamaya in qaar ka mid ah xildhibaanada kusoo baxay doorashada halkaasi ka dhacday ay dowladda kenya qeyb ka tahay oo iyadu ay keensatay booskaasi si siraha dalka ay u gudbiyaan axmed madoobe oo in dhawaale ku maqnaa dalka kenya ayaa arrimaha ugu badan uu kala shiriyay waxay ahayd in doorashada ceel waaq loo wareejiyo balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa soo saartay warqad baabi'inaysa doorashada ceel waaq ka dhacda sidoo kalena isugu yeeray shir ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran isagoo kaga faa'iidaysanaya in la sii daayay kursiga fahad yaasiin xaaji daahir sidoo kalena garbaharey la geeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee 16 kursiya rooble ayaa isku dayaya in uu xoog ku maquuniyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya balse tani waa sharci oo lama dhaafi karo warar soo baxay ayaa tilmaamaya in hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen sidoo kale hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish iyagoo ka jawaabaya baabqa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho waxayna tilmaameen in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo fariisiyo madasha wadatashiga qaran oo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ugu horeeyo maadaama doorashada ceel waaq loo baabi'iyo sidoo kalena heshiiskii 17 Sebtembar iyo xeer lambar 30 aan dhinacna loo dhaafin axmed madoobe iyo dowladda kenya sirdoonkeeda ayaa ka wada shiray in xildhibaanadaasi la geeyo booska iyagu ay rabaan oo sidoo kale ay dowladda federaalka ee soomaaliya ay galaangal siyaasadeed oo weyn ay ku yeeshaan axmed madoobe oo fiirsanaya shilimaadkiisa yaryar ayaa hadda waxa uu doonayaa in 16 kursi hadda ceel waaq lagu dooranayo inuu ka buuxiyo dowladda kenya sirdoonkeeda balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo garowsan madax banaanida iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed ayaa wareegto soo saaray taasoo ka naxisay axmed madoobaha hogaamiye jubbaland ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo sidoo kale dowladda kenya hadda waxaa soo baxaya in dowladda kenya ay ka niyad jabsan tahay maadaama warqad sharci ah ay hortaalla axmed madoobe meel ay wax ka bilaabaanna ay garan la-yihiin doorashada ceel waa ka dhacday waa ay baabaaday maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu warqad soo saaray taasoo ku diidayo in qof sirdoon u ah dowladda kenya iyo dowlada shisheeye ay soo galaan qarankeena iyo baarlamaankeena sidoo kalena waxa uu warqadaasi ku socodsiiyey gudoomiyaha ku-meelgaarka ahi baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee 11aad waxa uuna tilmaamay inaysan wax xuquuqa lahayn shisheeyaasha soo galay baarlamaanka federaalka ee soomaaliya uu rooble siinayo shahaadada maadaama rooble hadda uu qarankii xaraashayo waa ay niyad jabayaan rooble iyo sidoo kale dowladda kenya axmed madoobaha iswata maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya madasha wadatashiga qaran uu awood badan ku leeyahay isagoo fursadani kaga faa'iideysanaya in la sii daayo kursigii fahad yaasiin xaaji daahir oo sifa sharci darra ah uu ku hor istaagay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble qodobada kale aan saaxiibayaal idiinahanana waxaa kamid ah agaasime cabdinuur ayaa beeniyey warar laga faafiyey oo la xiriira puntland agaasime ku-xigeenka madaxtooyada villa soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa ka falceliyey
qoraal ay warbaahinta iyo baraha bulshada qaarkood lagu baahiyey kaasoo ay la sheegay in villa Soomaaliya ay dabaaldegtay tallaabadii uu qaaday madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash inuu xilka la wareegay. agaasime Cabdinuur ayaa qoraaladaasi iyo eedeyntaasi ku tilmaamay kuwa been abuur isla markaana loogu adeegayo cadawga shisheeya. waxa uuna ku eedeeyay xarun uu leeyahay Furoole oo ay maamusho sahan in ay faafinayso dacaayadaha been abuurka. Cabdinuur ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay uga digtoonaadaan xarumahaasi baahiya wararka been abuurka ee shisheeyaha ay gadaal ka reexayaan, isagoo oo ugu baaqay in ay ka xishoodaan waxyaabaha ay baahinayaan. taageerayaasha hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni isagoo aan xilka wareejin Muqdisho ku sugan oo olole doorasho uu ku doonayay inuu xilka madaxtinimo ee dalka ku qaata ayaa u arkay in villa Soomaaliya ay taageerayso ololaha siyaasadeed reer Puntland ku wadaan Siciid Deni. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah weerar madaafiic ah ayaa lagu qaaday saldhig ku yaala duleedka Kismaayo. xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay meer madaafiic ku qaadeen saldhig ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Baraka oo hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. goobjoogayaal ku sugan deegaanka la weeraray ayaa waxay sheegeen in ay maqlayeen jugta madaafiicda oo qaarkood ku dhacay xerada ciidamada Jubbaland iyo agagaarkeeda balse aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay, walow wararka qaar ay sheegayaan inuu jiro khasaare dhaawac oo ka dhashay. Al-Shabaab oo ka hadashay weerarkaasi ayaa sheegtay in madaafiicda ay la heleen gudaha xerada ciidamada Jubbaland isla markaana khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen ciidamada, balse aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada Al-Shabaab. wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidamada Jubbaland dhankooda ay howlgallo ka sameeyeen deegaano ku dhow deegaanka Baraka iyaga oo ka jawaabaya weerarka hoobiyaasha ee lagu soo qaaday. wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanka Baraka oo kamid ah deegaanada laga ilaaliyo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu tahay mid degan isla markaana howlaha isu socodka dadka iyo ganacsiga ay si caadi ah u socdaan. waag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanaysay Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan, like-na ay nagu dhiirigelisaan, gambalaalka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alleh.